maanta waa maalin muhiim ah runtii waxaan aad ugu faraxsanahay inaan halkan u joogno inaan laba qodob oo muhiim ah aan runtii go'aano ka gaarno qayb kamidana waa dabaaldeg NCF inaan maanta operationalization keeda aan u joogno iyo in work plan keeda mataqaana laga doodi doono runtii waa laba qodob oo aad iyo aad muhiim u ah sidaad la socotaan madaxweyne Dr. Xasan Sheekh Maxamuud markii uu xukunka la wareegay doorashadii maalmahay socotayba dalka waxaa ka taagnaa abaar xoog badan waxyaabihii ugu horreeyay oo wax laga qabtay bay ahayd howlaha u yaala dawladda oo mudnaanta u lahaa oo ah in macluul laga hortago runtii waana laga hortagay oo dadaal weyn oo dawladda bixisay looga hortagay sida la socotaanba waxyaabaha ugu waaweyn oo macluusha keena waxaa kamid ah iyo abaaraha isbedelka cimilada kaliya marka abaarahaas wax laga ma qaban oo waxa la yiri waxa la rabaa in aynan soo noqon oo wax laga qabto isbedelka cimilada wasaaradii deegaanka iyo isbedelka cimilada la yagleelay sidoo kale waxaad maanta u joognaa NCF aan marti u nahay ayadana waxay ahayd qorshe kamid ah qorshayaasha madaxweynaha oo la rabo in dalkan wax looga qabto gaar ahaan isbedelka cimilada sidaad ogtiin Soomaaliya waxay ku biirtay Task Force on Access to Climate Finance oo ah mechanism oo toddoba dal oo Soomaaliya toddoba ku tahay oo ay taageerayso UK wadamo badan oo donor countries ka ah kuwaas oo looga gol lahaa in wax looga qabto dalalka koow isbedelka cimilada uu saameeyay ayagoo aan wax raada ku lahayn waxa sababay haddana noqday dalalka aafada ugu badan ay ka soo gaarto marka si climate finance loo hagaajiyo waxay noqotay dalal badan in ay qaataan mabda kamid ah mabaadiida Task Force on Access to Climate Finance oo ah in country ownership wadan walba uu xal asaga gaar u leeyahay oo sameeyo Soomaaliyana waxay noqotay in NCF ay noqoto hay'adda muhiimka ah arrimahaas xalkooda wax ka qabanaysa marka waxaan ku faraxsanahay hawshaas guud oo aan maanta u dabaaldegayno oo aan sidoo kale aan furayno laba waxa sidoo kale muhiim ah marka laga tago hay'adaha cimilada iyo isbedelka cimilada iyo deegaanka ka shaqeeya oo NCF-na kamid tahay waxaa dalkan uu leeyahay qorshayaal oo NTP-ga uu kamid yahay oo Vision 2060 ay kamid tahay oo aan rabno in dhammaan mudnaanta uu dalka leeyahay halkaas ku jiraan midaan aan waafajino waxaan rajeynayaa in cilmiga halkan ka soo bixi doona uu kaalin muhiim ka qaato sidii howlaha mudnaanta dalkan u leh wax looga qaban lahaa aad baadna u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.